boqor Cabdullaahi Axmed Cali iyo garaad Saleebaan garaad Maxamuud oo kamida garaadada dhaqanka iyo isimada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa shir jiraayad ay ku qabteen magaalada Garowe ee xarunta dowladda Puntland waxay si kulul uga soo horjeesteen heshiis 17 bishan magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ku dhexmaray madaxweynaha maamulka Qaatumo Cali Khaliif Galayd iyo mas'uuliin ka tirsan Somaliland. garaad Saleebaan garaad Maxamuud ayaa ugu horeen shirkan ka hadlay waxaana uu ka waramay sababaha xilligan uu ku diidan yahay heshiiska Somaliland iyo maamulka Qaatumo ku dhexmaray magaalada Hargeysa. anagu shirka Hargeysa maamulka Hargeysa iyo shaqada ka socota iyo soo saaro go'aamadiisa shirkiisa dambe midna shaqo kuma lihin qaal muslimaan maqaysaa koodin ha maqlo muslimku ha maqlo gaalada maqasho waa shaqo kuma lihin waxaanu kala nahay dad wadankiisa kala jooga isku eegasayn isku abtisiyahayn hadii dhaarshay reeriyo Soomaaliyeed iyo xidid iyo wax jireena iyaga diido xumeeyay shaqana kuma lihin mana raacayno mana hoos galayno hada qaramadka noo furfuri maayo wax qaybsana kama rabno saamina maqanama doonayno waxay naga maqnaanaya haday maamulka dhaqaata ma doonayno. sidoo kale garaad Saleebaan oo kamid ah garaadada dhaqanka miisaanka kule deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ka waramay aragtida uu ka aaminsan yahay maamulka Qaatumo ee madaxweyne Cali Khaliif Galayd. Cali Khaliif ee maamulka hadda uu wato anigu dhibaanto weyn hadaan nahay maanu dooran wala wada ogyahay yarkay markay mas'uuliyiin istaagan waxaan diray faraha ka qaada waa noo wada sheeganayay hada wax qabanayaan faraha ka qaada ma maanir saasaan isaga daynay aan dhowr goorna waan ka hadlay way soo wadaan iyo farxada ku dambeeyso baaleen nuuriye hadaan taag gudo ninkaan ka raacay intuu ku hadlay hadaan u daayo waxba kama dhina inkastoo xogaa inqaa ku daray waxba kama dhina laakiin waxaan uga jeednaa ragga iyaga hadlaya yaan la oran nin qura hadlayo intooda kale waa diidan yihiin yaan la oran baan uga jeednaa. boqor Cabdullaahi Axmed Cali Dabagooye oo geystiisa shirkan ka hadlay waxa uu sheegay in isimada garaadada dhaqanka iyo nabadoonnada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka midaysan yihiin aragtida ay ku diidan yihiin heshiiska Somaliland iyo Qaatumo. garaad Saleebaan taa ku hadlay waa la qabaa boqor Cabdullaahi Axmed Cali baan hay waa la qabaa garaad taabana meelo yar oo gudaha iyaga aanu ku saxayna mooyaane waa la qabnaa isagana inta yada kale ana kulligay isku raacigaas aanu nahay waxa marka ku hadli mayno anagu magac kooxeed iyo magac maamul aan jirin sheegashadiisa ku hadli mayno beelweynta dhulbaahante magaceeda ee aanu dhaqanka u nahay baan ku hadlaynaa waxaanu isku raacsanahay kuwa tagay ee hadda yiri waxbaanu ku biirayna naguma metelaan arinta oo beesha kuma metelaan kuwa garoocashada wadaana in yari u go'ay mayso ummadweynta iyo deegaanka ay taal iyo shacabkeeda iyo dhaqankeeda yaa taladu ka go'aysa. Umar Soomane, Universal TV, Garowe.